isku maqanay kala maqanay warya waxaad ku maqnayd mahankeene isku maqanay kala maqanay waxaad ku maqnayd mahankeene waxaan ku maqnay dadkan maqano warya wixii ka maqnay muraad kala ahayn waxaan ku maqnay dadkan maqanayo wixii ka maqnay muraad kala ahayn war isku maqanay salaamu calaykum waxaan maanta idin hayaa safiirka shiinaha ee Soomaaliya muqdisho maanta shir jaraa'id ku qabtay waxaana uu ka hadlayaa coronavirus iyo sida shiinaha uu ula dagaalamay hadda talow annagu waa yaabna muqdishaan joognaa iyo Soomaaliya annagu mashiinaan joognaa muxuu nagala soo doonay shirkiisa jaraa'id war safiirka ma wuxuu leeyahay daawadii corona looga hortagi lahaa ayaa la helay wareeda waxa inii sheegaya garan maayo anigu waxa uu ka hadlay yaa noogu xogaalsan xogtiisa noo haya nimayo ana war idin hayo maanta waxaan maqlayay dhakhtar ka faaloonayo coronavirus-ka sida la istaga ilaaliyo wuxuu leeyahay lacagaha gacmaha lagu qaata la iska ilaaliyo kulli anigu AFC baan isticmaalnaa shini Soomaaliya hal la dhaafay u dhigantaata waxa uu kaloo yiri gacmahaaga ka ilaali afkaaga indhaha inay gaaraan hadda sida wuxuuna malqacada la isticmaalo salaantana waxa la leeyahay sidii niman aan ogahay lugta la iska salaamo ama la soo celiyo ciyaarta hore oo dadku waaweyn dheeri jiro back to back la dhihi jiray oo meelahaas la iska salaamo ama waa ka sii fiican tahay assalaamu calaykum aan qaadan waraad isku maqanay war ninka dhaxaya shini Soomaaliya isticmaalkiisa hal joojiyo ma shirkadaha isgaarsiinta ee adeegyada telefoonada lacagaha bixiya soo dirsada warniyo arintaas siday tahay ma aqaane kulli anigu waxay ila tahay inay ninka dhakhtarka ka soo hadlay shiinaha inaa ka wada shirkadaha war isku maqanay cudurkan corona la yiraahdo ee shiinaha ka jira horta musiibo ilaahay waaye dadkaas shiinaha waxay cunaan hilibka eeyaha dameeraha dooliga qashin oo dhan ayuu cunaan taasa corona keentaan u maleeyaha wareeda wadaadkan waa iska hadlayaa isku maqanay waxa idin sheegaya dalalka muslimka wuxuu ugu dhacay hadii kuwaas dameeraha iyo eeyaha iyo doofaarada ay cunaan ma idin sheegaa idinku sidaas leediin kowde war kuwa muslim oo shiinaha tagay oo waxa arkay baalkan in la yiraahdo xar walwalka inta la dubu cunayo wallahi wareeda isku maqanay wax aad soo wadaanba maanta ma waxaad ii keenteen lacagahan gacmaha lagu qaadanin xagee lacagta lagu qaada dadkan awaleeba hore gaajo ugu baabaceene wax ma idin sheegaa war Allah subhanahu wa ta'ala islaamka naga dhig horta aan ku mahadino nin muslina oo ilaa hadda u dhinto cudurkaas lama hayo war shiinaha waxay ay gacmooda ku kasbadeen ayaa haysto waatay muslimiinta inta gubeen maqar ku jarjareen ayagoo shahaadanayo Allah subhanahu wa ta'ala na xaq ma daboolo حقيا كسو داهري هذا وحيلين مسلمين تنو دعية إنه إلهي عذر كان نجاقاضو ورهاد اسكو مقري مثل ما لسعتين إن كي إذا ماذا الصومالي كلا بيه ربطو مرة دي أي كلا بحذنا وحن فيلا إن الهشين دونه ورهاد اسكو مقري ما أنت مجاجونتين عدكين ما خرو غادان وعايزين شيء جاية كينياتي عن ده الصوماليان كبحينا أول بالعين وقبل أنا يورت محل فائدة وقبل ورسكو مخاني كينياتي قاعد كهالليسان أدهيسان الصومالي ويكبحيان تاسي مع الدهاي ورسكو مخاني وحميدين شيئا إذن كماش وحاكوهيسين ور iyo waxaan loo joogin nimankaas day baxaan sheeg-sheegooda xaydin kaga shaqo jiro hanaga baxaan xeyno hayn wareed isku maqanay war mid sheega war Kenyaadka haduu baxo deeqaadkii la cunay iyo marqaamkii wala tagayaan wuxuu ma jinjaada soo dhiibi maayaan wareed isku maqanay war ninka wuxuu sheegaya maqla warqaadka iyo waxa sheegaysiin waaba ka soo horeeyeen ciidanka waana ka dambeynayaan wareed isku maqanay horta waxa idin sheegaya adinku warka si sax ah uma sheegaysaan Kenyaatiga haday wadanka inooga baxaan qaad horta ka jooji maayaan sababtoo ah lacag bay naga helaan $1 milyan ku dhow maalin walba meel lacagtaas ay ku baxdo oo Soomaaliya maanta faa'iido ugu jirtana ma jirto marka waxa idin sheegaya Kenyaatiga haday baxaan dad bay dhibaysaa dadka dhibaysaa waa aan soo sheegno war isku maqanay hadii Kenyaatigu ay baxaan Axmed Madoobe iyo Cabdirashiid Janan yaa u maqan war isku maqanay ciidamada Kenyaatiga haday baxaan oo ay dalka ka tagaan
dadkaas waa dad Soomaaliyeed dadkooda dhinac ka raacayaan hawshoodana raacahayaan waraana ninkan riyoonaya fiir war hadda Mandheera degiina meeshoodii meel ka dheer aan ku ognahay war isku maqanay hadday Kenyaatigu baxaan janan iyo Axmed Madoobe maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa degmada beled xaw ugu tagaysa waraana isku maqanay anigu waxa idin sheegayaa Kenyaatigu hadday baxaan horta dad badan waa u aayi doonaan Jubbaland qolada la yiraahdo oo koonfurta Soomaaliya degan oo dawladda isu taagtay horta dhibaato weyn baa halka ka raaci doonta cid caawisana waa weyn doonaan marka waxa idin sheegayaa dawladda Soomaaliyeedna ayadoo xaragoonayso oo maarta isnaashnaashaysa ayay Kismaayo iyo Bu'aale iyo maarta Dhoble iyo meelba ka degi doontaa war ninkan riyo maalmeed buu ku jiraa war hada Jubbaland hadii Kenya ka baxdo meesha Imaaraad baa imaanaya maxaa kugu dhacay labadoodaba ninkii meesha ku haya joogay war isku maqanay dawladdu iyada naftirkeeda qaando qabo maahan waxa lagu xantaa Ethiopian iyo Eritrea inay gadaasha ku wadato marka maalmihii la soo dhaafay waxa la isku eedeeyay idinkaba Ethiopia wadatiin ee Kenya nooga leexda waraad isku maqanay waxaan idin sheegayaa haddii nin meeshan Imaaraad soo hadal qaaday ninkaana dawladda uu ku tiriyay inay xiriir la leedahay Ethiopia iyo Eritrea war Turkiga xagee ku ilowdeen oo ciidanka qalabka sida dhanba dhisay waraad Turkiga waa laga hadlay wareed war ma ogide ninka Cabdiraxmaan Shakuuraha bartiisa Twitterka ayuu wuxuu ku soo qoray dawladda Turkiga ka fiirsatay ciidamada dawladda ay dhisayso haddii kale waxa loo isticmaalaa jihada ay u dhistay maaha jiha aan ahayn waxaana arintaas ula jeedaa dawladda ciidamadeeda ay howlgallada ka wado Dhuusamareeb iyo Gada sidoo ku qoray bartiisa Twitterka waraad ninka Cabdiraxmaan Cabdiskuur yiraahdo asaga ku riyoonaya markuu Soomaaliya madaxweyne ka noqdo soo ciidanka ba Imaaraad iyo tababar ma dhihi doono war isku maqanay Cabdiraxmaan Cabdiskuur horta dawladda Soomaaliya ma arateen madaxdeeda waa lagu waabiyaa ninka waad aragteen maalin walba afkiisa wax ka dhacay marka Cabdiraxmaan Cabdiskuur ma faraha ka qaadno waraad isku maqanay Cabdiraxmaan Cabdiskuur ka naga dawoodaan dalka madaxweyne ka ma aha xildhibaanna ma aha wasiirna ma aha hatta gudoomiye degmo iyo ku-xigeenkiis midna ma aha marka maxaad nooga wadaan waa isu qabe aan loo qabin qadkiisa lumiye ee qarda jeexe qabashu u baahan yahay ninka naga qabtanimayo war isku maqanay war ma yeesaan war ay hayaa Imaaraadka markan waxaad u moodaa in Soomaalida aqligeedii uu fahmay dibna uu laabanayo saldhigii berbero dhanka militariga ka dhisanayay waa uu joojiyay maadaama Turkiga halkan saldhig weyn uu ku leeyahay kullee asigu Turkiga lama tartami kare wuxuu yiri Soomaaliya aysan ku fiirinin oo aysan ku arag sida Kenya oo aragno kale ina u aragno diidan ninka waraad isku maqanay waxaan idin weydiinayaa Imaaraadka ma go'aankii baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen ayuu soo xasuustay hadeer isku maqanay waxaan la yaabanahay nin kasta markuu halkan iska imaanay ee saldhig ka dhisay ma guriga hooyadiiba wallahi qof dama nooma imaan karo war saldhig haddii Imaaraadka berbero uu ka dhisay hadii kalaba war adiga kala tashanayo waraad isku maqanay ninkan hadlaya dhahay guriga hooyadii miya horta waxaan weydiinayaa yaa isaga ka tashanay markii ugu horeysaba wareeda isku maqanay warbahashu sida ma ahane Imaaraadka dalka Eritrea ka dhisay saldhig military waana ka kaaftoomay kii berbera war isku maqanay dawladda Eritrea shaqo badan ayada Soomaaliya ma la shaqaysahay Imaaraadkana ma la shaqaysahay wareeda ninkan wuxuu sheegayaa fiir war xeerka diblomaasiyadda caalamiga sida qaba wareeda isku maqanay nimankan hadlaya warkooda war baa iiga baxay qoladan Imaaraadka shirkad ay lahaayeen oo DB Well la yiraahdo iyo Djibouti maandeed watay dacwad isku haysteen horta talo xagee ku dhamaatay maxkamadda Ingiriiska dacwad la geeyay watii la lahaay war isku maqanay ninkan war ma haye abukaataash labada dal ayaa kala maqan marka abukaataash fasax ku maqan yihiin markay fasax ka yimaadaan kadib ay noo balneen uu kala wada